kala lacagta shilin Soomaaliga hadda la leeyahay waa la soo wadaa ama waa la keenayaa wadankii si arrintaa u aragtaa ma in lacag shilin Soomaaliya soo saarto kula mu haboon tahay mise in lacagtan doolarka hadda la isticmaalo in la sii isticmaalayo kula haboon aniga aad baan u taageersanahay in maaragtay dowladda Soomaaliya lacag shilin Soomaaliya soo saarto maadaama doolarku uu yahay lacag wadan Mareykanka laga isticmaalo oo standardka nolosha Mareykanka ku xadidan oo bangiga dhexe Mareykanka controlayo nolosheennana ayna nolol doolar ku base garaysanahayn shaqaalaheennana ayna qaadan lacag doolar bil kasta marka aad baan soo dhaweynaya inay noqoto wax dowladda Soomaaliya soo saarto dowladda Soomaaliya controlsho dowladda Soomaaliya beddel garayso dowladda Soomaaliya qiimaheeda dejiso oo maaragtay ay isku daydo inay dhaqaalaha wadanka kor ugu qaado iyadoo isticmaalaysa lacagta wadanka okay marta aniga sina waa ku qaraxsanaa sina waa kaga soo jeeda horta anigu marka qaarkoodna waxaan isdhahaa ama doorku fiican yahay in la sii isticmaalo sababta u leeyahay waxa weeye doolarka waa lacagta ugu adag hard money lacagta inay hard noqoto markaan ku soo shaxay inaan easy lagu soo daabici karin maxaa yeelay wadanka Mareykanka wadanka adduunka wada badan oo lacagtiisa controlkeedu aad u fiican yahay wadanka Soomaaliya og tahay oo musuqmaasuq la leeyahay Soomaaliya wadamada ugu xun bay ku jirtaa dowladdeena weli way iska tahay xaaladaha aan rabin inaan siyaasadda iyo lugta la sii galo laakiin aad og tahay waxa laga sheegay wadankii in haddii awood loo siiyo dadka madaxda ka ah ama qofka central bankiga jooga ama madaxweynaha ama wasiirka maaliyadda ama qofka wasiir qofku doonaba ha noqdo anoo shakhsi rabin inaan taageero haddii ay awood helaan marka hore waxaan kala hadlay trust inaan inna la is aaminin ma aamini karnaa dowladda hadda joogta inay intay lacag iska daabacdo inay lacagta ah shayga ugu muhiimsan nafta qofka markii laga socoto ma ku aamini karnaa inay lacag iska daabacdo mise tan Mareykanka oo awoodeedu la og yahay controlkeedu corruptionkeedu uu ka yar yahay kan Soomaaliya marka loo fiiriyo miyaan iska sii joognaa haddii tan lasoo daabacayo shin Soomaaligana dee hadda ka hadlay interestiga iyo lacag in la iska daabaco laftigeedu aan dahab backing ku samaynin ama back up haysan ayadana laftigeedu waa waxyaalaha aad iyo aad uga shaki qabo waxaa kaloo aan dhinaca kale markaan fiiriyo kugu raacsan oo ah hadda Mareykanka asaga lacagtiisa soo saara asaga benefit ka hela oo lacagtaas iska daabacayo hadda duu doona meel ku weerarayo waa lacagtu daabacayo marka nin hadduu inflation ku dhaco Mareykanka annaguna waan saameynaysaa oo ayaga ku xiranay dhinacaas inta ka fiirsin waa fiican tahay ayagu waa haysan annaguna lacagteena goonida haysano taasna waa dhinaca kaaga raacsanaa laakiin midda kale oo shaki qaban waxa weeye wadankeena xaaladiisa aad og tahay inaan annaguna awood sii siino aan daabacitaanka ah taas way midda anigu shaki ka qabo taas waa arrin fiican oo dadka derskeena oo dhan la qabno oo ah shaki laga qabo dowladdu inay maaragtay abuse of power ama ay lacagta iska brete garayso marka kolleyba haddii shan Soomaali la sameeyo noqon maysa mataqaanaa wax maalin isla habeenkaa dadku dhankooda guuraan kolleyba doolarku muxuu noqon standardka maaragtay dadku ay lacagtooda ku kaydiyaan qofkii raba mataqaanaa inuu lacagta wadanka kala baxo oo wax soo gatana uu kusoo gato marka in dowladda Soomaaliya hadda samaysa lacag waa muhiim laakiinse shacab ahaan iyo dad ahaan kolleyba mudday qaadanaysaa inay aaminaan dadku bangiga dhexe Soomaaliya aaminaadaana maxay ku imaan doontaa mataqaanaa howlfanaasha iyo shaqo wanaagga marka la arko dowladda isku xiga Soomaaliya dadku aaminaan intii laakiinse inta laga gaarayo shacabka Soomaaliyeed markii markasta iyo markasta maxay doolarka u noqon doona mataqaanaa waxa ay lacagtooda ku kaydsadaan ay maaragtay ay dunida caalamkana wax ugu qagataan دولار كأنا كلمة استعمال وضع بدن أو بعد استعماله دولار country بالها لاتين أمريكا وضع ما كمية أو دولار استعماله ما كوضع كلية استعمال دولار أنا مليهن وأكيد أنا هذه إلهي هذا